marka mid hore Ilaahay baa mahad iska leh maanta halkan isku ka keenay maadaama aan filayo xalfadan inay intan ka weynaan lahayd laakiin se qabriga jire qabrigaas kulli dadka ay ku kala yaraadeen wixii aan ka hadli rabay kulli waa la wala bogay laakiin arintii wali aad ii daarsan maalin kalena meeshan xalfadan nafaas liga sii aan ka hadle waxay ahayd oo wali naxdin mudan in maalin walbaba aan ka hadalno madaarista ama diinta oo hoos u sii socoto iyo macallimiintii sheeqashii oo maaragtay naftoodii iyo xoogoodii cilmigoodii ba horeen inay halkan taagnaadaan ayagoo arkayeen haday meel sare ay aad lahayn inay kaga faa'iidaan sidii Dioga uu sheegay wali annagana aan hoos u sii socono maalinta kalena waan sheegay maantana waan ku celini waxaad arkaysaan ilmaha hadda primary soo bogeen laba diin mid maaragtay adduunyada ah iyo mid waxa jirta adduunyada aqradana anfacdo tana kamid marka mid ayada ahayd nin walba oo maanta ugu hoose oo la dhahay hadda nin kunshin agoodi karo malaha unugiisi wuu qaade secondary gu geynaya meel wax ka keeno meel buu ka keenaya ama rixin ha u geysto ama xoolihiisa ha ku madoobeeyo waa la bala taagna laakiin madaarista markay imaatay kun shilin ayaan agood lana oon laga wala jeestay waxyaalaha kale waa la sameeynaa marka horta midaas waa nasiib darro waxayna keen kartaa waxyaalo maaragtay dhanka Ilaahay aan ka filayno inaan ka wayno hadii diinta aan maaragtay gacanta mid aan ku qabsan wayno raxmadii naxariista Ilaahay la wayni kara marka saas inaan wayno walaalayaal diinta sidii nugula boorinaha ama nugula barihayo aan kor u qaadno waxaan ku soo gabagabayn diinta haday maanta naga muuqato waxyaalada magaaladan ka dhacayo muusan dhaceen waad ogtihiin magaaladan hadda ijaara bilooyinka aan soo dhaafnay ama sanad hadda aan soo dhaafnay waxyaaladii ka dhacay u dambeysay faaxishada arrimaha ugu badan oo magaalada ka dhacayaan odayaalna waa joogan culimadeena waa joogan madaxdiina waa joogan wili hatta banaanbax waan ka sameyn wayn arrimooyinkaasna wixii inay arintaas nagu weynaato wixii noo keenay waxay ahayd diinta oo hoos u sii socoto oo gacanta bidaxda aan ku hayno marka macallimiinta waa joogan hooyolkii waa joogan abayaalkii waa joogan madaxdii waa joogan arinta ayada ee walaalayaal aan maaragtay aan isku danno inaan kala wala istaagno aan ka maxadarayno culimadana waxaan ka bariyay markii u dambeysay inay ka qamiis ama arbaca maalin walba magaalada gudaheeda ay maaragtay maxadar ka dhigaan si aafada soo socoto inta hadda na soo moodo waabay na soo moodo laakiin waxa dambe inaan maaragtay kan kala wala istaagno arinta waa arin xun arin u dambeysay jaara bilooyinkii u dambe ka dhacaysay mid kale OCS ka haduna maqlay hadda telefoon ku yar mashquulsan yahay waxaan ka bari oo dharaar horena ugu dambe arinteedii ugu dambe oo dhaarana DBB ga uu ka sheegay gaaris arrimo waxaa jira hadii aan mar walba hoos u xaalino maanta dambeysay meel xun bay ka dhacaysaa waxa kamid ah arinta hadda ijaara aan ku sheegay oo duqeydan ay ku dahay mar walba inay mar hoosteed wax ku xaaliyaan wali way nagu sii fakanaysaa arinta duqeyda inay ka dhaxbaxan arinta kufsinka oo ilmaha yar oo 18 jirka ka yar la kufsan hayo faaxishada inta na soo martay waa garanaysa inta kulligeed nin faaxisho sameeyay maxaan u gargaarin oo leeyahay odayaal ba firsan geedka hoostiisa la fadhi marka arintaas dhaara hore mar baan damcay inaan soo galo OCS baa ka horeeyay Mr. Dumale OCS baa ka horeeyay waan soo yar garay arin maalin jaara ka dhacday OCS ka inuu cisleeyna waan ka warhay markaan soo gale duqowga haddana fiiri arintana waxaan warkay inay war ka hayn waan kaga yar baxay markaan lugaha kala baxay ayaa dhameysatay chiefka arinta waxay mar haday OCS ka ay gaarsiiyaan inta kale OCS ka dambe ku leh laakiin odayaasha waad ku xirmi kartaan waxyaalo qaar oo hadda sharciga dawladda aan ogoleen nin faaxisho sameeyay oo magaalada ku sameeyay walaalayaal u garab istaagan dhaqan xeer ijiyaal lagu dhameyn faraha laga qaado si kootiinkaas la dabaashaan OCS Mr. Dumale there was an OCS before you I don't know his name Mr. Mohammed Ibrahim actually there was so many cases that has happened in this town issue of defilement issue of gang rape and all those things and they will say sometimes they try to solve those things through maslahi kindly never bend to any pressure about that deal it and take it to the court directly never bend with that thank you very much wa mahadsantiin